gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee xisbiga kulmiye mujaahid maxamed kaahin axmed wasiirka wasaaradda warfaafinta Somaliland Cismaan Cabdilaahi Saxardiid Cadaani iyo wasiirka macdanta iyo tamarta Somaliland Xuseen Cabdi Ducaale iyo xubno kamid ah gudida kaambeynka xisbiga kulmiye ayaa shacabka reer Somaliland ku hambaliyay sidii nabadda ahayd maalinkii shalay doorashada madaxtooyada Somaliland codkooda u dhiibteen sidoo kalena mas'uuliyiintan ayaa ku amaanay qabsoomida doorashadan inuu madaxweyne Axmed Silaanyo kaalin muhiim la ka qaatay komishanka doorashooyinka nabadgelyada sugidda difaaca qaranka iyagana aad iyo aad baynu ugu mahadnaqaynaa waxaanu mahadnaqaynaa xisaabta qaranka oo tartan wanaagsan oo xor iyo xalaal ah ay soo dhaxmartay muddadii ololaha xadidani uu jirtay iyo muddadii ka horreysayba waxaan qaranka Somaliland leena ugu baaqaynaa maanta xusbiya tartamaya baynu ahayn maanta shacabka Somaliland axsaabta ku kala qaybsanaa oo mid waliba codkiisa siinaya caawa oo goobihii doorashadu ay dhamaystirmeen oo tiradii komishanku uu tirinayo waxaynu nahay qaran mid ah axsaab qaran oo mid ah ummad midaysan oo cid walibana codkeedii ay dhiibatay shacabka jamhuuriyadda Somaliland meel kasta ay joogaan oo runtii dad u heelan una maxaan ku dhahdaayay diyaarna u ahaa inay doorashadan qabsoonto ahaa waxa hambaliyadaas maxaan ku dhahdaayay la wadaaga shacabka jamhuuriyadda Somaliland madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo oo runtii maanta ka dhigaya qaran dhisan oo horumar gaadhay oo doorasho gaadhay oo ummadiisu ay tahay ummad isku tashanaysa maalintan maanta ee dhamaatay bisha 13keeda ee electionkii soo afjaray waxaynu ku qormaynaa buugaagta Afrika umaleyn maayo dal faqiira oo de saboola ilaahay fakhriga inaga ilaaliyo dal yaro saboola oo la ixtiraafsanayn in doorasho caynkaas oo nidaamsan oo wax dhibaato aanay ka dhicin oo aaladii ugu dambeeyay casriga lagu shaqaynayo inay ka dhacdo oo wax dhibaato iyo wax maalinka maanta isdhaafi aanu iman oo si fiican maanta inoogu soo dhawaatay lama filayn shacabka reer Somaliland oo muujiyay biseelka inta leeg iyo horumarka inta leeg iyo yacniga in ay danahooda qofka iyagu isiraahdaan qof waliba ay la ahayd in uu wax qaban karayo codkiisa siiyay tartan siiyay xisbiyada iyo magaranaysa murashaxiinta wax kasta ay natiijadu noqotaba kii ilaahay u calfay ama uu magaranaysaa codku siiyo ee aynu u badanno ayaa soo bixi doona oo cidna ka hor dhici mayso kaasina la wada shaqayn doonaa iswada daba taagi doonaa iyaguna sida ay ballan qaadeen ayay kii soo baxa ay suuqa u wada lugeynayeen ayay hambalyeyn doonaan aan hambalyeynayaa shacbiga gobolka Togdheer sida fiican ee nabadgelyada leh ee ay u tartameen ay ugu kala biireen saddex xisbi qaran runtii macallin ma ahayn waa la kala tagay waa la tartamay saddex musharax baynu tartansiinay waynu kala raacnay saddex xisbi baynu kala raacnay haddana shacab gobolka Togdheer maantana way soo gabagabowday waxaynu ka wada shaqeynaa horumarka gobolka iyo midnimada gobolku mar walba mid buu ahaa oo ma jiro gobol qayb waxaasoo dhan marka la isku daro Somaliland waxay muujisay bisayl iyo ay dimuqraadiyadda ay u bislaatay oo ay codkeeda qof waliba codkiisa rabitaanka iyo waxa uu doonayo uu ku muujinayo waxa mahad leh axsaabta qaranka oo si nabadgelyo ah oo walaalnimo ah oo mid waliba dhinaciisa ka ilaalinaya nabadda waayaala xasan Salebaan ayaa la BMTV-ga caalamiga Somali News magaalada Burco.